Asalaamu calaykum asxaabay isu soo noqosho wanaagsan. Weli waxaan gudaha uga jirnaa fiidiyodii la xiriiray dhowr xanuunka. Waxaan soo duubnay video part 1 aan u bixiyey oo mechanical lower back pain ama xanuunka kiisa fudud. Waxaan duubnay part 2 oo sciatica ahaa ama qaybta oo neerfaha la xiriirta ama xididka waxa loo yaqaan la xiriirta. Waxaan duubay oo aad hore usoo daawateen. Haddaadnan daawana videoga soo daawada part 3 oo spinal stenosis marka kanaalka spine kanaalku uu yaraado iyo xanuunka ay keento iyaduna qayb neerfaha ka mid a. Maantay waxaan duubaynaa part 4 aan duubayaa maantay. Qaybtan waa qayb iyagii oo dhan ka duwan. Qaybtan waxaa la yiraahdaa rheumatismada dhabar xanuunka keenta. Rheumatismadu meelo badan ay gashaa, qaybo badan oo jirka ka mid ah ay gashaa oo ugu daran yihiin jilbaha iyo sinaha. Fiidiyo kale aan ka duubi doonaa laakiin maadaama aan weli dhexda uga jirno dhabar xanuunka waxaan jeclaysta inaan idinla wadaago qaybta rheumatismada oo dhabarka gasha. Rheumatismada dhabarka gasha waa maxay? Horta rheumatismada sideeda waa natural process of aging la yiraahdaa. Waa qayb macnaha dadku 30 sano qofku markuu gaaro ay ku bilaabataa. Dadka qaar ay xataa ka hor ku bilaabataa. 40 markuu gaaro xoogaa qayb way sii siyaadaa. 60 dadku markay gaaraan da'doodu qof walba waa ku jirta. Laakiin waxyaalaha oo very interesting ka rheumatismada ah dadka qaar ay aad ugu jirtaa laakiin wax xanuuna aysan ku hayn iyo wax dhiba aysan ku hayn. Marka waxaan rabaa videogan hadda daawato inaad ogaato haddii aad dhakhtar u tagto oo rheumatism lagaa soo sheego macnaheedu maahan in waxnaha raajada uu ka arkay dhakhtarku iyo xanuunkaagu ay correlate yihiin oo mar walba haddii lagaa soo sheego inaad sasto ama aad stress ku dhaco maaha. Sababtoo ah dad badan oo rheumatismada xiriirta gasha oo ay ku jirto jira wax xanuunana aysan ku hayn. Marka waa waxyaalo lala noolaa karo oo inta badan haddaad lifestyle-kaaga wax ka beddesho, jimicsato, fitamiinadaada aad qaadato, cuntooyinkaaga cuntooyin fiican oo anti-inflammatory-ga cuntada aan inflammation-ka keenin oo cuntooyinka shiilan iyo waxyaalahaas aad sideeda ka fogaato, culayska aad yaraydo, jimicsato, ood active ahaato, waa wax lala noolaa karo caadi. Marka aan ka hadlayno rheumatismada halkan waxaa la yiraahdaa vertebral column la yiraahdaa. Waxaa inta badan dhacda diskiyadaas yaryarka oo u dhaxeeya labadaas blogaas ay u dhisan yihiin u dhaxeeya waxa waaye degenerationku ku dhaca. Macnaheedu waxa waaye uu shrink garoobaya, uu yaraanaya, dhacaankii ka baxaya, isaga dhan uu yaraanaya. Sidoo u yaraanayo disk height la yiraahdo, u yaraanayo lafahaas isku soo dhawaanaya. Waxay kaloo sameynaysaa wax la yiraahdo osteophytes. Lafahaas sida hadda aad u jeedin way qurxoon yihiin, way siman yihiin si oo maaragtay isla eg oo siman way iyagoo dhan oo makiinad lagu qoraa moodaa. Laakiin markii degeneration uu yimaado ama rheumatismadu ay gasho harfa yar ay leelanayaan. Harfahaas waxay taabanayaan xididada halkan ku jira, muruqyada halkan ku dhadhagan, waxaas oo dhan ay taabanayaan. Carradaas oo dhan marka meeshii la taabtaa waa ku danqayda dhabarka. Sababtoo ah osteophytes-kaas wey. Waxay kaloo sameynaysaa osteophytes-kaas waxay sameynaysaa kanaalkaas oo meesha neerfayaashu ay ka soo baxaan. Hadday kuwan lafar soo bixido dheeraada midda korena lafa dheeraada soo bixido neerfahaas ciriiri galaya, neerfahaas ay taabayda. Marka waa meesha category uu ka dhaco. Marka lagu leeyahay mile 3 category loo qaybiyaa. Waa mile oo wax yar oo iska maaragtay oo diskiyadaas oo yar shrink garoobay yar, moderate oo dhexdhexaad oo disk height uu yaraaday, iyo severe severe marka lagu leeyahay spinal canalka meesha neerfuhu ka soo baxayna ciriiri noqoto. Meelahaas caadiga oo hadda oo hoolalkaas yar oo caadiga u jeedin oo dhan soo yaraahay ciriiri noqday. Markuu ciriiriga noqdo maxaa dhacayda? Neerfayaasha sidan hore idinkugu sheegay ama uu taabanaya ama muruqyada oo meeshan iyo seedaha ku jira carradaan oo dhan irritated noqayda depending on dhinaca uu ka taabtay ku xiranta. Marka hadduu meelaha neerfa ka taabto lugta iyo xanuun ka dareemi doontaa. haddii ilaahay ku reey meelo kore ka taabto meelo kore ka dareemay. Hadduu S1 iyo uu maaragtay S2 iyo L5 iyo ka taabto ilaa lugta hoose xanuun neerfa xididka sciatic oo kala dareemi kartaa. sidoo kale wuxuu saameyn karaa ilaa sinaha iyo hoos u saameyn karaa. Marka laakiin qaybtaan waxay ahayd aan raajada idinkugu wareejiyo. Marka if we zoom in can you see it from here? If we zoom it raajada markaan fiirayno hadda waxaa u jeediin waa raajo oo dhabarka laga soo qaaday u jeediin. Inta caadiga kor hadda fiiridiin waa nice waa gray laakiin marka cadaan ka aragto increased sclerosis la yiraahdaa. Marka raajada fiirayna 3 shay aan fiirina. Increased sclerosis cadaankaas badan oo maaska haddaan aragno, osteophytes lafahaas yaryarkan hadda ka hadlayo geesaha u soo baxayna aan aragno, disk height
oo reduced disk height na aan aragno disk height-ka uu soo yaraaday oo lafihii isku soo dhowaanayaan. saddexdaas shay haddaan u jeedno rheumatism saasaan reportka ku qornaa, rheumatism ku qornaa reportka haddaan saddexdaas u jeedno. haddii warqad report ahoo naloo keeno oo meel kale laga keenay oo degeneration disk degeneration iyo waxaas ay ku qoran tahay, disk degenerative disease-na waa la yiraahdaa, disk joint degeneration-na waa la yiraahdaa, oo hadduu jointiska yahayna waa DJD weye, hadduu uu diskiga yahayna waa DDD. saddexdaas diya loo soo gaabiya. marka saddexdaas markaan aragna haddaan reportka kuwaas ku aragnana rheumatism lagaa soo sheegay iyo waxyaalahaasaan ku sheegaynaa. haddaan annagu raajadiyo filimkii aan aragnana waa saddexdaas shay waxa aan fiirinaa. marka inta badan balaankeedu muxuu yahay? balaankeedu maaragtay waa symptom management. osteoarthritis ama rheumatismada wax laga dawoobo completely oo tagta maaha, laakiin symptomka la manage karaya. hadday noqon lahayd kaalmaatiyaal iyo daawooyin xanuun baabi'iye iyo inflammationka areadan ka yareeya inaad qaadato, iyo sidaan idiin sheegaba jimicsiga iyo inuu qofku dhaqdhaqaaqo, sababtoo ah markastoo aad dhaqdhaqaaqdo dhacaankii iyo lubricationkii meesha kusoo noqonayo meeshii awal oo diskiga u yaraado, waxaa laga yaabaa dhaqdhaqaaqaas inuu maaragtay spinekii iyo uu furo areadii uu furo. marka hadday severe tahay oo neurological waxyaalo saameyna ay ku yeelatana taas markaas way marka oo chronic pain clinic iyo loo diro meelo oo painka ku takhasusay oo xanuun baabi'iyaal iyo hadday loo baahdo cirbado iyo waxyaalahaas ku dirta. laakiin inta badan physiotherapy iyo cirbadaha yaryar oo acupuncture-ka iyo massage iyo inuu qofku noloshiisa wax ka bedelo oo xoogaa jimicsado socdo uusan iska fadhin, iyo midda ugu muhiimsan inuu qofku culayskiisa dhimo. haddii uu qof aad maaragtay u culus yahay, pressurekaas diskiyadu wuu sii badanaya ilaa sinaha iyo wuu sii badanaya. arthritis waxa waaye qofba qofku ka culus yahay way uga sii xanuun badan tahay. marka weight management inuu lifestylekiisa qofku wax ka bedelo iyo kaalmaatiyaal inuu qaato, waxyaalahaas unbaa lagu manage karaya. hadday xaaladdu severe tahay midda daran tahayna waa markaas neuropathic medicationka oo neerfayaasha iyo loo cuno iyo cirbado iyo markaas wey markuu xaalad kale u baahan doona. marka waxaan jeclahay inaad intaa aad uga bogateen. fiidiyo kale aan mustaqbalka kasoo duubi doonaa. sidoo kale su-aalaha gmailka la iiga soo diray drhashinetwork@gmail.com oo qaybihii hore la xiriira. marka su-aalahaas weli kama aana soo jawaabin. session dhan aan samayn doonaa su-aalaha, maadaama aan weli dhabar xanuunka fiidiyadii ku saabsanaa aana dhammayn kama aana soo jawaabin. markuu groupkaas dhabar xanuunka ku saabsan oo uu dhammaado, hadda mid kale noo sii dhiman oo waxyaalaha oo inflammationka dhabar xanuunka uu keeno, dhiigaga iyo cudurrada raaco dhabar xanuunka keena noo sii dhiman. kuwaasoo dhan markaan soo dhammeeyo markaasaan su-aalaha kasoo jawaabi doonaa. waa facebook pagekii uu ku jiraa gmailkii, weli sidii aad ugu soo diri kartiin, markaasaan kasoo wada jawaabi doonaa. marka qaybtan waa qaybtii afaraad oo la xiriirta dhabar xanuunka oo aan rheumatismada aan uga hadlayay. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. haddaad hore noola joogteen, haddaad nagu cusubtihiinna kusoo dhawaada channelka Dr. Hashi Network. fiidiyo badan oo waxaan soo wadaa oo kale oo la xiriira jilbaha iyo rheumatismada jilbaha gasha, midda sinaha gasha. waxaan kaloo soo wadaa fiidiyo kale oo la xiriira madax xanuunka oo aan ka ahayn kuwii concussionka hore. waxaan usoo duubay jugta madaxa gaarta iyo xanuunka ay keento, madax xanuunka keenta, madax xanuunka aan jugtu keenin iyo in noocyada uu kala yahay. fiidiyo kale ayaguna soo socda, marka isla sii sheer gareeya. waa isku soo noqosho wanaagsan insha allah. See you soon.